arin yaabkeeda wadato oo laakiin ay tahay qof kasta inuu iska ilaaliyo ayaan rabnaa inaan meeshan ku sheegno marka fariinta ay ku soo gaarto ama muuqaalka aad furtidna aniga ma aha in ay danaynaysid gabadha ay qusayso sheekadan runtii yaab kale oo hadda cirib iyo jaam meel dhigtay la laayahay oo ay la boodeen nimankii Etoobiyaanka ah ayaa caawin u baahan si ay u gaarto safaaradda Soomaaliya ee muuqaalka sii gudbi gabar dhalinyaro ah oo gabadhan iga dambaysa sawirkeeda u jeedaan wadatana gabar yar oo iyada ay dhashay ayaa waxa ay ka soo safraysay Ethiopia garoonka diyaaradaha iyada oo ku sugan laakiin nin ayaa Soomaali ah oo ay isku arki jireen degmada Xamrweyne waxa uu u soo dhiibtay gaxwo Ethiopian ah bac ay ku jirto sida xogtu sheegayso hase yeeshee gaxwada tirada badan hoosteeda waxa ku taakaysan in ka badan ama ku qarsan in ka badan ama kor u dhaafaya 20 baasaboor baasaboorada ma sii kala ah hadana waxaaba ku jira nin si aad ah u baaday goobayso dawladda Ethiopia sida xogta hadda ay xaqiijisay gabadhi cid iyo dhul ayaa laga dafay waxa la yiraahdaa gabadha Aisha Abdullahi Ali halka ninka barnaamijkan u taraarixiyay ee gabadhan ku qiyaamay magaciisa lagu sheegay Magan Maxamuud in la yiraahdo kadibna sida uu waa soo socda u dhahay markii connection gabadha ay la sameysay oo ay wacday waa soo socda isuga ana hadda idin imaanay uu dhahayina waxa markii dambe la waayay xiriirkiisi waxa la aaminsan yahay inuu ka cararay Ethiopia oo meel kale oo galay oo naftiis u badbaadsaday gabadha laakiin waa ku jirta Aisha Abdullahi Ali waxa la weydiiyay meesha ay waxan ka keentay waxay sheegtay inuu nin u soo dhiibay oo yiri gaxwadan ii qaad gaxwo ama qaxwo sida dadku u yaqaanaan ayaa iyada loo soo dhiibay laakiin ma loo sheegin in waxaan uu ku dhex jiro taasa marka gabadha halis gelisay haddana xaaladeedu runtii ay ku jirtaa allow bixi macnaheedu xabsi ayaa loo watay iyadii cunugeedii sidoo kale tana ma jirto raad kale oo intaas ka baxsan oo laga haayo dawladda Soomaaliya gaar ahaan safaaradda Ethiopia ay ehelkeeda codsanayaan inay bal arintan ku baxaan maxay taa khatarta meeshan ku jirta kiiskan ka horeeyaa jira gabar ku xiran wadanka Saudi Arabia oo markii dambe in la daayay hadda aan qiyaasahay oo waliba Ilaahay uu u heeliyay oo maxkamadda la soo bandhigay rag sheegaya oo gabadhaas bariyeelaya laakiin hal waxay ka sinaayeen oo ah taasna xalwa wax loogu qariyay daroogooyin tanna qaxwo ayaa loo hoosgeliyay baasabooro alaabtan ii qaad Soomaalida aad isku aaminta waay ii soo qaad hadaa wadan hebel tagtid qof maanta iska soo wacay wara alaabta ii soo qaad qof kale soo mara warninka ma aqaanay u soo qaad daf soo siinaysa ilaa waxa leedahay walaal waay bariya u baahanay waa ina furfurtid waay ha soo qaadan kuma dhahay laakiin ina kala dhigtid waay aad dhahay alaabta aad keenaysid ii keen waa isla fiirinayna iyadoo aan kala shaki jirin maxaa adiga qabtaa dhibka aad ku qabtid maxay tahay in isla fiirin waxba fur saas aan leedahay waa gidgidinay waa fiirinay marka ogaatid in alaabtaas sakuura tahay oo wax dhibaato ku jirin adoo isku huba soo qaaday haddii kale oo lagu dhaw alaabtan waxay xiran tahay sharoota wali mararka qaar Soomaaliyay iska ilaaliya mararka qaar sharooto ayaa lagu xirxiraa wax iyagii asagii dhan saas u kuuskuusan oo meel aad ka hubisid aan jirin lagu keenaa sax ma aha maxaa ku jira meesha mustaqbalkayga ma looday adi halis ma igelinaysa hadda gabadhan iyadoo dib u soconin oo wadankeedii u socota oo qoyskeedii u socota ayaa dib dhaxday ka gashay oo aysan iyadu wadanin si looga dhaadhiciyana waa la laayahay safaaradda Soomaaliya kaliya u gurma karta burcadkana waa la raadi karaa waa la heli karaa laakiin gacan shacab ma aha gacan dawladda ku jirta dawlad kale lama caamili karto haddii kale gabadhaas xaalkeedu waa adag yahay waliba meelaha ugu xabsiga adag ee ka mid Ethiopia السلام عليكم